بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh musharaxiinta guddoonka golaha shacabka guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka saxaafadda iyo dhammaan dadweynaha nagala socda warbaahinta dalka iyo dibaddaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane guddoomiye mudane aliyo marwoohin xildhibaanada sharaftii og edeninta mudan waxaa sharaf ii ah anigoo ah xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inaan idinla wadaago inaan ahay musharaxa u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya. sidoo kale waxaan hortiin u soo istaagay inaan idin weydiisto codkiina iyo kalsoonidiina iguna aamintaan mas-uuliyadda culus oo aan u qabanayo xildhibaanada sharafta leh ee dalkeena iyo dadkeena. mudane guddoomiye mudane aliyo marwooyin haddaan idinla wadaago aan wax idinka taabto taariikh nololeedkayga iyo khibradayda shaqo. aniga waxaan ku dhashay degmada xudur xarunka gobolka boqol 1956 bishii abriil. da'daydu waa iska qiyaasi kartiin, dadka da'da waa qarsadaan ma qarinahayo. 65 sano waan dhameeyey. khibradayda shaqo haddaan wax idinka taabto horta aqoontayda haddaan wax idinka bilaabo intaan maaragtay aan dhexgelin khibradayda aniga takhasuskaygu wuxuu yahay culuumta islaamka gaar ahaan shareecada islaamka iyo culuum diraasaadka islaamka aan ka sameeyey. culuumtayda aniga waxay maaragtay ku saabsan tahay dhinaca shareecada islaamka iyo culuumta islaamka. waxaa iila jira 30 sano ku dhowaad oo waayo aragnimo ah. sharci kasta iyo xeer kastoo dalka loo dejiyey aan goobjoog u ahaa. aqoontayda markaan soo koobo dhinacaasay u badan tahay dhinaca waxbarashadayda. waayo aragnimadayda shaqo mudane guddoomiye iyo mudanayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinla soo siiyo intaan aniga qaranka u soo shaqeeyey ama xil dawlad aan soo qabtay. 93 ilaa 95 waxaan noqday guddoomiyaha degmada xudur. 96 laga soo bilaabo waxaan ka mid ahaa odayaashii waxgaradkii siyaasiintii ku mashquulsanayd sidii dalka Soomaaliyeed oo burbur xun soo gaaray loo heli lahaa dib u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed isku soo celiyo iyo dawlad dalkeena meesha loo heli lahaa yaan ka mid ahaa. shirarka aan ka qayb galay waxaa ka mid ahaa shirkii Soodare oo dadkii la rabay qaarkood imaan waayeen oo dawlad loogu dhawaaqi waayey oo urur la soo sameeyey in Soomaaliya la isu keeno lagu soo go'aansaday aan dawladda ugu dhoosin laakiin lagu go'aansaday in 4.5 wax lagu qaybsado. shirkii ugu xigay wuxuu ahaa kii Jabuuti. shirkii Jabuuti adiga ma aadin saaxiibo aan isku tiim ahayn oo la yaqaano waad ogtihiin ma idinka qarsoona. aniga waxaan ku jiray markii Soomaalida kala burburtay oo cid kasta deegaankeedii tagtay ururkii RRA baan ka mid ahaa mas'uuliyiintiisa. marka saaxiibaday guddoomiyihii iga sareeyay iyo laba iga hooseysay ayuu dad kale badan Jabuuti ka qayb galay. waxaa liigu soo qoray xildhibaanamadii nasiib wanaag markii dambe duruufo jiri awgeed kama qayb galin xildhibaan ma noqon markaas. waxaa iigu xigtay shirkii Nairobi lagu qabtay Eldoret iyo Embakasi. waxaan soo noqday anigoo dib u heshiisintii dadkii aad ugu dadaalay ka mid ahaa iyo dawlad dhiska wasiirka cadaaladda
iyo garsoorka iyo xildhibaan ugu dambeyntii markii dambe aan dalka gudihii lagu soo noqday waxaa la ii doortay 31 January 2007 gudoomiyaha golaha shacabka halkaasaan qabtay waxaa igu xigtay 27 December 2008 waxaan qabtay aan ku darsaday xilkii gudoomiyenimada si dastuuri ah markuu is-casilay Allah u naxariista madaxweynaheeni hore marxuum Cabdullaahi Yuusuf hilkii uu baneeyay asiga iska casilay hilkii gudoomiyaha lagu daray waxaan noqday gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna madaxweynaha siihayaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ilaahay nagu guuleeyay markaas inaan isugu tagnay oo Djibouti dawladda ugu soo dhisay intaas kadib waxaan ahaa markii dawladda la dhisay uu ku guuleystay dawladdii Shariif Sheekh Axmed waxaan ahaa xildhibaan gudoomiyihii golaha shacabka waxaana lagu guuleystay oo ilaahay nagu manaystay inaan ku ceeboweyn markuu madaxweynaha is-casilay shaki waxa yimid ama dalkii burbura aniga oo runtii la kaashanayay xildhibaanadii sharafta lahaa baarlamaanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo waxgaradka waxaan ku hogaamiyay labadii tiimkii mucaaradka midowgii maxaakiimta iyo dawladda ku meel gaarka ah inaan isugu geyno Djibouti walaalkeen Ismaaciil Umar Geele khayr Allah siiya iyo dadkiisa dhamaan reer Djibouti walaalaheen gogisha noo fidiyeen inaan ku midowno dawlad ku soo dhisano ilaahay ii soo guuleeyay halkiina markaas ku wareejiyay madaxweynaha la doortay Shariif Sheekh Axmed waxaan hogaamintooda bilaaway 275 horay u jirtay ilaa 275 oo lagu daray oo hataa xeerka ay soo mareen xeer taageerayaasheeda is dileen hataa soo maray yaan waxaan isugu geynay hal hool waana midoobeen dawlad sharaf baarlamaan sharaf leh oo ummadii Soomaaliyeed metelo oo aan isdagaalayay noqdeen ilaah baa nagu ceebasturay saas dalka uu soo noqonay markaan nimid meesha hadda lagu shiro xarunta golaha ummadda oo burbursan oo wixii dhanto baqti beelaad ku dhinto iyo lagu jiido oo mas'uul ahaan loo isticmaalo ayaan waxaan sameynay gudoomiyihii aniga oo gudoomiyihii baarlamaanka sideedad iyo xildhibaanadii waxaan sameynay inaan meeshii dhisno dayactirno nadiifino xildhibaanadii waa joogeen mid ilaa hadda lagu shiro ama ilaa hadda noo socdo waay isla markaas waxaan soo codsaday dawladda walaalaheen Turki yaan aaday waxaan ka codsaday in meesha la noo dhiso waan naga soo ogolaatay barnaamijkaas wili sidii la rabay looma fulinin rajigiisana ma xuma ilaana inta bayga noo dhisay wadugti taas xaalaha kale aan ilaahay u makeenan ku soo guuleystay intaan xilka ahaa waxaa kamid ah inaan shuruuc badan oo waqti ariiri duruufo jirta aan soo hirgelinay aan soo milmarinay oo tii aan afjarnay barbuqaandadii dawladeen lagu barbuqaamay oo la dhihi jiray waa almaaniyiin nama lagu barbuqaami jireen oo aan u fadhiisinay shariicada islaamka in dalka lagu dhaqan go'aaminay kamid ah ee qodob badan oo ogtihiin shaqaalaha rayidka kamid ahaa tii badroolka kamid ahaa tii ciidamada kamid ahaa yaani lama soo koobi karo xaqiiqda iyadoo duruuf adag jirto aan baarlamaanka kuna haysanin intaas kadib waxaan rabaa mudane gudoomiye mudane Ali Marweyne labaanada sharafta leh guulahaas lama soo koobi karo ilaahay baa noo soo makaniyay maanta midaan lagu soo gaari waay waxaan rabaa inaan idin sheego haddii ilaahay uu guuleeyo oo aad codkiina siisaan oo aad doorataan waxyaalaha aan damacsanahay waad ogtihiin xilka in lagu maago inaad codsatid waxa caadiyan badan in lagu maago laakiin waxa jirta duruuf haday jirto waxa daliil u ah Nabi Yusuf alayhi salaam wuxuu yiri markii boqorkii mahadiyay oo la heshiiyay oo aniga ila shaqeynaysa uu yiri dawladiis oo dhabaataysan wuxuu yiri ij'alni ala ghazaa'in al-ardi inni alimun hafiid walaalayaal waxaan idin leeyahay labaanada sharafta leh aniga inaan maanta u soo istaago waxaan isleeyahay duruufta maanta jirta inaan wax ka qaban karo waxyaalaha aan maaragtay soo istaagay kamid tahay sababtoo ah baarlamaankeeni ugu dambeeyay hadda duruufii jiriyaan ogahay marka arrimaha aan ku talagalkay waxaa kamid ah sareynta sharciga iyo ku dhaqankiisa waa qodob ii taagan si loo helo baarlamaan haybad leh shuruucdiisa madax bannaan u fulin karo si loo helo waxa kale muhiimadda koowaad aan siin doonaa
xalin ilaalinta madax banaanida golaha shacabka mudanayaal marweyne labaadana sharafta leh waxaad ogtihiin baarlamaankeeni tobanaad waa soo dadaalay laakiin xadgudbi aan caadi ahayn ay lagu sameeyay waxaad ogtihiin guddigeeni maaliyadda markii xisaabtan ay la galeen hay'adihii qaabilsanaad maaliyadda guddigii in habeen madow la kala diray guddoomiyahooda cararay alaana dibadda ku magan yahay baad ogtihiin xaqiiqdii waxa baarlamaan looga adkaysan kara maaha in xildhibaanka codkiisa ama loo jujuubo ama loo handado oo dalka ugu cararo waxaan ogolaan darna maaha hadduu ilaahay yidhahdo aniga ilaahayna guuleeyo mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan kale haddii aad i doorataan codkiisa siisaan aan xoogga saari doonaa idinkoo idinkala tashanaayo horumarinta xiriirka golaha shacabka golaha aqalka sare iyo golayaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha dowladda federaalka si aan u noqono dal degan oo isku wada xidhan u noqono hadduu ilaahay igu guuleeyo oo aad codkiina siisaan waxaan kale maaragtay aan xoogga saari doonaa hirgelinta dhismaha xarunta weyn ee golaha shacabka muddo kooban maadaama waqtigaas aan codsanay caalamkana diyaarno ahaa inuuna caawiyo la fulin waayo inaan fuliyo oo aan idinku hogaamiyo ayaan ku dadaali doonaa haddii aan leenno sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa dhismaha guddiga adeega baarlamaanka oo weligii la dhisin si xuquuqda baarlamaanka meel loo saaro guddi madax bannaan oo waajibkiisa loo helo ayadoo guddiyadii kale caadiga ahaana sidooda loo dhisi doono oo ay guddigaasi noqon doonaan guddiyadaas guddiga howlaha baarlamaanka fuliya si dastuuri ah hay-adaha dastuuriga la xisaabtamo kor joogtayo waajibaadkiis guto asigoo cidna ka baqaynin asigan ujeedadiisa inay ku xadgudbo laakiin waajibaadkii loo edbaday fulinayo haddii aan leedno mudane guddoomiye mudane aliye marweyn waxaan hadduu ilaahay yidhaahdo aan xoojin doonaa oo idinku hogaamin doonaa xiriirka baarlamaanada caalamka waxaad ogtihiin baarlamaankii sideedda oo aan sheegahay oo dhaqaale qaadanaynin dhammaan baarlamaanada caalamka hubaan ka noqonay waagaasa la dhisay iyo ilaahay nagu guuleeyey kulli waa jiraan baarlamadii caalamka dhan xubinteen waa ka bannaan tahay taasna waa sii xoojin doonaa insha allah waxaan kala dhiirigeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aan codkiina isiisaan oo aan codkiina ad isiisaan waxaan kala dhiirigelin aan u samayn doonaa oo si maaragtay mug leh aan ugu dadaali doonaa wada xaajoodkii istaagay walaalaheena Soomaaliland si aan u gaarno xeer aan dastuurkeena afti u qaadi karno maadaama intii Soomaaliya ay muhiim ka maqan tahay dastuur qaadista aan lagu toosi karin si aan walaalaheena aan ugu qancino dhibaatooyinkii ay tirsanayeen si wada xaajood walaaltinimo aan ugu galno midnimo Soomaaliyeedna loo helo waxaan xoojin doonaa xukuumadana ku kor jeegdan doonaa arrintaasi xalaalnimo oo dabadaacnimo in wada xaajoodkaas loo furo qodobka 12 mudane Ali Marweyn labaanada sharafta leh hadaad doorataan waxaan hubinta iyo hagista hubin iyo hagis ku samayn doonaa doorasho axsaab ah oo si xor ah dadka loo doorto qofii cod la gaarsiiyo dalka ayada oo maaragtay wiliba tarakoob laga hormarin doono haddii aan la idmo oo dalkeeni ammaankiis u sugmo intaan hadda xilka haynin waxaan rajaynayaa in arrintaas ilaahay nagu guuleeyo mudane guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan aaminsanahay haddaad i doorataan codkiina isiisaan inaan isbeddel la taaban karo baarlamaanka Soomaaliyeed aan ka keeni doono oo aan heli doono kalsoonida shacabweynihiina soo doortay oo maanta yacni moraal xumo ku dhacday oo xeer iyo ka shakeen ama matalaadii waajibkana saarnaa in aan ka gaabinay aaminsan inaan wax ka bedelno hadduu ilaahay yidhaahdo aad i doortaan qodobkaas xoog aan saari doonaa waxaan kale maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u howlgali doonaa oo aan baarlamaanka federaalka ku hogaami doono haddaad i doortaan codkiisa siisaan maqaamka caasimadda Soomaaliya
oo dhibaato badan ka taagan tahay oo muddo badan sidii saa u taagnaayay waxaan rajaynayaa in ilaahay nagu golin doono anaguna dadaal aan caadi ah ku bi doono hadii Alle idmo insha Allah xildhibaanada sharafta leh waxaa la yidhi anugu maamaha baa jirta afmaaya markaad walfadaas qabsato mid wala koo fadaa la yabsay marka adiga waxa doonaysid xabsanin laakiin markii wax laga doonayo markaas laga yaabaa in absatid xishootid maanta aniga waxa hortiin u taaganahay inaan idin weydiisto codkiina waxaan idinka ballan qaadayaa haddaad doorataan ma noqon doono hadduu ilaahay yiraahdo gudoomiye intuu iska tago madaxda kale asiga istiis wax ugu raadsada ma noqon doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kale baarlamaanka ka ilaalin doonaa oo aan u howlgali doona aniga oo baarlamaan weynaha golaha shacbiga aan la kaashin doono xildhibaanadeen inay ka maarmaan in ay shahaad u doontaan hay'ad kale oo ay noqdaan nolol isku dheelitiran inay helaan waxaan kale hadduu ilaahay yiraahdo haddaad doortaan codkiin isiisaan aan u howlgali doonaa baarlamaanka mahad in loo sameeyo oo aqoon kororsi ah xubnaha baarlamaanka iyo howlwadeennada baarlamaanka dhammaantood aqoon kororsi maaragtay duruus joogta u noqoto yaan samayn doonaa waxaan dhisi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xarunta markaan dhisno in waxaan gaarsiin doonaa haddaad codkiisidaadii doorataan xubin kasta baarlamaanka inuu xafiis helo sida adduunyada baarlamaanada u shaqeeyaan hadda mudane aliyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan kale rabaa dhaqankeeni inaan ku salayno sida diinta ilaahayna farayso oo anigu hogaamiyaha ah waajibaadkaas koow aan bilaabo ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu rasuulkiisa maamulka barayay wuxuu yiri fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam fadhu min hawlika fa'fu anhum wa'fu anhum washawirhum fil amri arintaas markaan soo koobo inta badan waa taqaaniin rasuulku waxa lagu amaanayn يعني وجلعسنا نحريس إلهي كسيه وجلعسنان تا دتك كل شقينا يو هدي عن لهين أو أضفضنا غليظ القلب قفك اللي في سنو قلب بعدك هذا هان لهين دتك وكاك العرير اللي هاي بالي مركا وحنا نقول تلي هدنا وشاورهم في الأمر آليري للشور وحي هين رسولك وحنا فرق إنه دتك كل شورو ولا ليال هالبعض الشرف تلي وحنا رباه هدي عن قدوبية دهرتان dabeecad lifsanaan adiga kala artaan ma kala kulmaysin waa koow arrimaha dastuuriga ah oo dalku u baahan yahay wada tashi baan ka wada yeelan doonaa gudiyo xoog badan oo barnaamijka soo dhanaan dhiro ayaan dhisi doonaa hadii alle idmo gudiga edeer garsoorka xuquuqda waajibaadka dastuurka dhan isku soo dubridaan diyaari doonaa go'aamada idanka si dhab u sheegteen oo been laga sheegaynin taridiina been kama sheegi doono haddaad boqoltiin boqol fadhiyaan sanaya hadii boqol konton fadhiyaan ma idan dhahay idan koo fadhiinin been idinka saacid dastuur ma idan ku noqonayo waxaan sameeyna idan haddaad rabtiin waa tarsanaysiin haddaad ka shakiisaan koo lama gudoomiye dadka waxba dhamna ay leedihiin tirada ma dhama xaga leedihiin waa qodob heer hoosaadka ogol yahay in baarlamaanka markaad shakiiso la tariyo sharafta baarlamaanka waxaan rabaa in heybidi uu lahaa sharafka baarlamaankeeni inay soo noqoto xeer waxaan gaarnay darada ugu dambeysay markii arrimihii qaladaadka aan sameeynay dadkii rabitaankooda ka tambadiyay baarlamaanku soo jeediyeen anagina jacdii weynay ku raacnay oo meeshii lagu fadeexoy xeer waxaan gaarnay xildhibaan muxuu yahay in la yiraahdo waad ogtihiin ilaahay hadduu yiraahdo haddaad gudoomiyada hortaan xildhibaan muxuu yahay idinma dhahayo waa idinka hibisan doonaa baarlamaan sharafeedna ku doontaan haddii alle idmo golaha shacbiga waxay la mid yihiin ummadii Soomaaliyeed dhamaanteed inta la soo fadhiisay la mid yihiin sharaftii ummadda Soomaaliyeed dushiina saaran marka anagu oo sharaftaas sidino inaan waxyaalo qaarkood aan ku fududaano amba dhaqaale maartay jidka naga leehiyo amba maartay waxyaalo kale oo qaldaada amba rabitaan shakhsi aan ku lugno walaalayaal hadduu ilaahay doorataan waa iska ilaalin doonaa insha Allah waxaad ogaatiin baabuur waxa la yiri haddii jidka ka leexdo asigoo orday oo maartay duurka laamaga ka dego inuu gudoomo dadka ku dhamaado badan yahay dawlad haddii shaqada ka leexato inay burburtay dawladda ogaada
hadduu ilaahay yidhaahdo baarlamaankan hogaaminayo sharcigu ku dhaqmaya sharciga kama dhexayno duurka jeex ma mari doono haddii aan leedmo insha allah badan yaali marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad tii aan sheegay oo aan u uskanayay daliilkii nabi yuusuf inni ajcalni ilaa khazaa'in al-ardi inni xafiidun caliim buu yidhi wuxuu yidhi aniga aaminna waan ahay dhaqaalahan waa aqaana boqorow haddaad wax ii dhiibaysa taas ii dhiib buu yidhi hadda waxaan idinka codsanayaa mar labaad baarlamaan maamulkiisana waa aqaanaa niisaman waa igu jirtaa qarannimadana waa jecelahay 25 sana u soo taagnaa in qaran Soomaaliya u dhismo waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina iigu deegtaan si anaguna maadaama aan aqoontaas aan leeyahay waa yaran lahay niisaman igu jirto aan isleeyahay dalkan isbedel la taaban kara baarlamaanka hogaaminaysa ka keeni doona maadaama aan aaminsanahay codkiin inaad u siisaan waad ogtihiin waqti khatar lagu jira tijaabo ay wiligeena kuma jiri karno walaalayaal intaasaan ka codsanayaa waxaan rajaynayaa inaad i dooran doontiin si aan maaragtay si aan u noqono baarlamaan sharaf leh oo saas ah marka runtii warka waa ku dheeraday qofka ma ogtahay markuu wax rabo waxa laga yaabaa hadal isku toosaneen hataan iska yiraahdo marka haddii waa iga galdiin raali iga ahaada waxaan ku soo gunaanadeeyaa haldageena wuxuu yahay baarlamaan xur ah rabitaanka shacabka ku shaqeynayo danta shacabka fulinayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh